Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garabeyga ku soo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa YouTube-ka aad naga daawaneysaan waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa isla anigoo ah walaashin Xafsayd soo dhawaada meel walba ay joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer iyo cibaado suuban insha Allah waxaa idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waa fiicanahay alxamdulillaah waxay noo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeeni maanta ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noola joogtaan like saar u share garee asxaabtaada oo la wadaag county soos nooga reeb fikradaada oo xalaala iyo waxaad jeceshahay in lagu soo kordhiyo insha Allah waxaa inoo soo socday kitaabkeeni baro boqol xadiis waxaan qaadan doonaa qaybtii 57 biidhnillah bismillah ana Aisha radiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه المسلم أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه المسلم ومنا عائشة الله كران نقضي وحي كبرنيسا النبي نبتقلين حريس كركي ساعتين كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي وحوها يذكر الله على كل أحيانه مت إلهي حساء وقت والبو meel waqti walba ay u tahay Allah subxaanahu wa tacaala mid xusa ayuu ahaa nabiga haddii habeen u tahay haddii maalin u tahay hadduu fursad hayo hadduusan haynin hadduu safar yahay hadduusan safar ahaynin yacni waqti walba wuxuu ahaa nabiga mid Allah subxaanahu wa tacaala xusa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahmi doontaan xadiiskan oo ka soo warisay umuna Aisha Allah karaal noqday inay sheegtay in nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay inuu ahaa mid Allah subxaanahu wa tacaala xusa waqti walba ay u tahay haddii habeen tahay haddii maalin tahay hadduu fursad tahay hadduusan haynin hadduu safar yahay hadduusan safareen wuxuu ahaa mid Allah subxaanahu wa tacaala xusa oo weynaya insha Allah waxaan rajeynayaa inaad la wadaagi doontiin asxaabtiina oo aad u share gareyn doontaan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka iyaga sidoo kale waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saarto ilaamin daawashada muuqaalka haddii aad inaad like saarto muuqaalkiisa xiga waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu